barnaamijka shaqo qaran waa barnaamij labadii sano ee u dambeeyay ka hano qaaday gudaha Somaliland taasi oo fikirkeeda iyo asaaskeedaba ay lahayd xukuumadda Somaliland ee garwadeenka u yahay madaxweyne Biixi. maanta oo Salaaso ah bisha Juun tahay 2 ayaa 22 wiil oo ka socda gobolka Gabiley isla markaasina soo dhameystay tababarka barnaamijka carbiska shaqo qaran ayaa ay maanta maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ku soo dhaweeyeen magaalada Gabiley. ardaydani oo soo dhameystay 3 bilood oo ay tababar ku qaadanayeen xirada tababarada ee Dararweyne ayaa maanta soo gaaray gobolka Gabiley. ugu horreyn waxa halkaasi ardayda kala hadlay. sharaf way noo tahay inaanu halkan idinku soo dhaweyno anagoo ah maamulkii gobolka ee dhameystiran aanu ku soo dhaweyno dufcadii labaad ee shaqada qaranka ee gobolkan Gabiley. waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada gobolkiina. waanu ku faraxsanahay inaad tababarkii soo dhameysataan idinkoo caafimaad qaba oo soo weeleeyay casharadii iyo tababaradii la idin siinayay. aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo fikirkan iyo barnaamijkan shaqo qaran oo wadankeena aynu rajeynayno inuu wax weyn ka bedeli doono kana bedelay moralkii iyo niyaddii dhalinyarta Somaliland wax weyn ka bedelay runtii hirgelinteeda lahaa. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa howlwadeennada barnaamijkan ee ugu horeeya agaasimaha barnaamijka shaqo qaran muwaadinka iyo inta la shaqeysa. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan dhalinyartii kala duwaneyd ee ka qayb gashay barnaamijkan ee ka kala socotay gobolada Somaliland. waxaan idin rajaynaynaa guul. waxaan halkan idinku nimi waa soo dhaweyn inaan idinku soo dhaweyno gobolkiinii aad ka tagteen oo aad ka maqnaydeen muddo 3 bilood iyo siyaado ah oo aad soo dhamaysateen barnaamijkii tababarka carbiska ee shaqo qaran. run ahaantii maanta iyo maalintii aad halkaa aad ka sii anbabaxayseen faraq weyn baa idiin dhexeeya. maanta inaad tihiin niman carbisan oo military ah oo haddii aad shalay arday keliya ahaydeen maantana aad ciidanka tihiin oo sidii madaxweynuhu sheegay oo laydinku maantana laydin tirsanayo. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha barnaamijkaasi midhaha dhalay oo iska daamasteexeenna cadowgeenna xataa ka markhaati furay inuu yahay barnaamij midho dhalay. geestiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Gabiley oo ku hadlayay afka dhalinyarada shaqo qaran ee gobolka Gabiley. waxaan mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo lahaa fikirkii lagu aasaasay barnaamijkan shaqo qaran. waxaanu ku leenahay madaxweyne waa maalinta kaliya ee ay shaqaysay wixii aanu soo baranay 16 sano iyo qalinkii aanu sidanay 16 sano. waa maalintii kaliya ee ay shaqaysay shahaadadayadu keensatayna inaanu dalkayga aamino. waxa kale oo mahad celinayaa barasaabka gobolka iyo gudoomiyaha gobolka maayarka gobolka oo keenay fikirka ah in Gabiley ahaan gobol saami gaara ay qaataan. waxaana maantana ay dufcadii ugu horeysay ee ka socota gobolka Gabiley iyadoo dufcadii koobaad ee ugu horeysay ay ka socotay gobolka Maroodijeex. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warku warbaahinta SBC gobolka Gabiley.